shirkadda Dahabshiil Group oo qayb ka ahayd isla markaana si weyn uga qayb qaadatay carwadii tobnaad ee lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa gabagabada carwadaasi waxa ay sheegeen adeegyadii kala duwanaa ee halkaas ay kaga qayb qaateen iyo sidoo kale adeegyada casriga iyo sidoo kale adeegyada noocyada kala duwan ee ay macaamiishooda u hayaan xidhitaankii carwadaasi ayaa waxaa halkaasi ka hadlay Sacad Muuse oo ka mid ah saraakiisha Dahabshiil Group waxaanu sheegay ka Dahabshiil ahaan adeegyada ay hayaan intii ay carwadu socotayna adeegyada ay kaga qayb qaateen isaga oo Sacad halkaasi bushaarooyin uga sheegay macaamiisha ku xidhan Dahabshiil Group waxaanu yidhi waxaan halkan uga maanta qadamo kore ilaahay isku suurtageliyay inaan isugu nimaadno munaasabadan marka labaad waxaan u mahadnaqayaa macaamiishii sida quruxda badnayd runtii uga soo qayb gashay carwada gaar ahaan macaamiishii Dahabshiil Group noogu timiday buudka one stop shop ee ku leenahay carwada oo runtii aan ugu talagalnay in macaamiishu hal goob ay kaga adeegtaan dhammaan adeegyada Dahabshiil Group hadday tahay adeegyada financialka ama adeegyada maaliyadeed oo ka mid yihiin Dahabshiil Bank International Micro Dahab oo investmentka ganacsatada carwada joogta iyo kuwa soo booqanaya runtii siinaya maalgelin iyo sidoo kale Dahabshiil Motors oo ka mid ah qaybta gaadiidka iyo sidoo kale qaybta isgaarsiinta oo ay ka joogeen Somtel iyo Bluecom waxaan sidoo kale u mahadnaqaynaa rugta ganacsiga oo munaasabadan si joogto ah runtii u qabanaysay oo uga mahadnaqayno inay ganacsatadaas oo dhan isku keento hal meel iyaguna ay bulshadooda iyo macaamiishooda si hufan ugu adeegaan waxaan ku boorinayaa in si sanadla ah gobolada Soomaaliland ay ugu qabtaan gaar ahaan goobaha ganacsiga magaalada Berbera iyo Wajaale oo soo jeedinaya iyagana ganacsato badan joogaan marka runtii ammaan la helo ammaan jiro ayaa ganacsatada isku timaada oo dhaqaaluhu kobca ganacsigu horumar gaara marka waxaan leeyahay colaadda ka socota baaqii ay bulshadu geesiban anaguna ku daraynaa mid la mid ah oo waxaan leenahay kol haddaynu dhuuxiyo dhiigga ka simannahay midabkiiyo dhawaaqiyo diinta iyo dhalashada walaalaheen waxaan lahaa in aynu ku dhamayno isafgarad wada hadal ayaan soo jeedin lahaa intaasaan ka baxayaa ugu dambeyntiina mas'uuliyiinta rugta ganacsiga oo hogaaminaya gudoomiyahooda xubno ka tirsan golaha wasiirada oo madashaasi xidhitaanka carwada tobnaad ku sugnaa ayaa halkaasi shahaado sharaf ku gudoonsiiyay Dahabshiil Group oo u gudoomiyay Sacad Muuse ka tirsan mas'uuliyiinta Dahabshiil Group waxayna shirkadda Dahabshiil Group shahaadadaasi ama abaalmarintaasi ku mutaysatay doorkii ay ku lahayd carwadu intii ay socotay Abdulqaadir Bulsha TV Hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydyaha